بسم الله الرحمن الرحيم أنا ku hadlaya afka golaha deegaanka caasimadda Hargeysa waxaan ogeysiinayaa dadweynaha Hargeysa in maalinta Khamiista ah oo ay bishu tahay 8 bisha July 2021 uu jiro olole nadaafadeed oo lagu nadiifinayo dooxa Hargeysa waxaa la isu imanayaa bacda salaatul subax ama shanta iyo barka subaxnimo marka salaada subax laga soo baxo waxaana dooxa Hargeysa qaybaha laga nadiifinayaa ay u dhaxaysaa Cawaala Jaroon ama halka wadada ka timaada beerta xorriyadu ay kaga soo dhaadhacdo dooxa ilaa iyo beerta sayidka halka wadadu kaga soo dhacdo marka ay ka timaado saldhigga New Hargeysa sidaa daraadeed shacabka reer Hargeysa waxaan ugu baaqaynaa inay nagala soo qayb galaan ololaha shacab ee aynu ku nadiifsanayno dooxa Hargeysa si dooxa Hargeysa aynu uga dhigno meesha dadka reer Hargeysa ay ku leer qaataan ku lugeeyaan ku kulmaan xilliyada uu roobku da'ana ay caruurtu bataaxa ugu dul ciyaarto si halka loo gaaro waxaanu dadweynaha reer Hargeysa ka codsanaynaa yar saqiir iyo kabiir ganacsato shaqaale sheekh dhalinyaro haween inaan loo kala harin halkaana waxay noogu diyaaraa dhammaan agabkii aynu u baahnayn si aynu qashinka u gurno sidoo kale waxa halka aad kula kulmi doontaa oo ku sugayo ololaha kala qayb qaadanaya dhammaan xubnaha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale shaqaalaha dawladda hoose ee Hargeysa waa maalin aynu tijaabinayna awoodeena waa maalin aynu ogaan doono inta aynu leenahay awood marka aynu isu geeyno awoodaheena gamaha isqabsano iskaashano wada jirno si markaa ay taasi niyadeena u dhisto oo aynu u tabaabulshaysano hawlo kale oo ka waaweyn inaynu wada qabano waxaanu shacabka reer Hargeysa ka codsanaynaa maalinta inaynu sameeyno isu soo bixi ugu weynaa saacad ama maalin gelinkeeda ama maalin dhan oo siisa magaaladaadu waa mustaqbalkaagii iyo helitaanka iyo bilowgii helitaanka Hargeysa nadiifa oo qurux badan oo wax diidaan lahayn